Waa idin salaam akhyaarta ku soo dhawaada muuqaalkan oo ka mid ah muuqaalo tixan ah oo aan ku baran doono samaynta barnaamijyada Android-ka. Muuqaalkan oo ah muuqaalkii ugu horeeyay waxaan ku baran doonaa qaabka loo dejiyo Android Studio iyo Java JDK oo ah waxyaabaha u baahannahay si aan u sameyno barnaamijyada Android-ka. Waxaa kaloo baran doonaa qaabka loogu duubo barnaamijyadaas marka la dejiyo kadib kombiyuutarka. Si aan u soo dejiyo barnaamijyadaas, waxaa u baahan tahay internetka. Waxaad furaysaa Google-ka, waxaad ku qoraysaa download Java JDK oo ay midka ugu horeeya ee aan ku duubi doono kombiyuutarka. Waxaa ku soo bixi doona page-kan. Google waxaad doorataa Java SE Development Kit 8 oo Oracle ah. Page-ka Oracle oo noocan ayaa kuu furmi doono. Waxyaabahan importantiga note-ka akhri. Hoos waxaa ku arkaysaa Java SE 8 Development Kit asoo sample wata iyo asoo sample la'aan ah. Hadda waxaan u baahannahay midka sample la'aanta ah. Marka hore waa inaad accept tiraahdaa license-ga. Marka xiga waxaad fiirinaysaa kombiyuutarkaaga nuucu yahay, hadduu yahay Linux, hadduu yahay Mac OS, hadduu yahay Windows. Kombiyuutarkayga waa Windows, gaar ahaan waa 64. marka waxaad ku dhufanaysaa nooca kombiyuutarkaaga uu yahay. Aniga 64 ayaa ku dhuftay. Markaad download ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona page-kan Oracle login account. Haddii Oracle account aan leedahay, isticmaal. haddaadan lahayn, mid hadda sameyso si uu kugu bilaawdo downloadka. Aniga waa leeyahay sign in. Downloadka hadda ayuu bilowday sida kaaga muuqato shaashada. JDK SE 8 downloadkiisa waa bilaawday. wax kaloo aan u baahannahay Android Studio download. Sidoo kale Google ka fur oo ku qor qaybta raadinta Android Studio download. Page-ka ugu horeeya kuu soo baxaya developer.android.com ka raadi oo dooro download Android Studio SDK tools. Markaad doorato waxaa kuu soo bixi doona page noocan ah oo aad ku arki doonto button weyn oo ay ku qoran tahay download Android Studio. waxaa arkaysaa inta uu yahay MB-giisa oo 700 MB ah. markaad furtid daaqadana kuu soo bixayso accept dheh, kadib download dheh. markaad download tiraahdo waxaa kuu bilaaban doona downloadka Android Studio IDE. labadan ayaa u baahannahay si aan u sameyno barnaamijyada Android-ka. qaybta xigta waxaa arki doonaa qaabka loogu shubanayo barnaamijyadan kombiyuutarka ama loogu duubayo. markuu dhammaado downloadkiisa ayaan bilaabi doonaa qaabka loogu shubanayo barnaamijyadan kombiyuutarka. videoga waa jaray. hadda waxaa ku soo laabtay downloadkii soo noo dhammaaday. marka hore waxaa important ah inaad sameyso waxyaabihii ku soo degay meel gaar ah ku shubo, si hadhow markaad adiga u baahato ama qof kale uu ku weydiiyo aadan internetka ugu raadinin. waxaad tagaysaa kombiyuutarkaaga folder ka mid ah. marka hore iyaga ayaad copy leedahay. tag kombiyuutarkaaga meel ka mid ah, sameyso folder oo iyaga gaar u ah, kadib ku shubo. kushubisteeda oo kombiyuutarka waa noogu soo degeen. hadda waxaan bilaabaynaa kushubisteeda. waxaan ka bilaabaynaa JDK sababtoo marka ugu horeeya kombiyuutarkaaga si aad u hubisid inuu Java hore ugu jiray. CMD-ga fur, command line-ka Java ku qor. Java markaad qorto waa inuu soo saara Java not recognized. micnaheeda waxaa waaye Java horey looguma shubin. hadduu Java hore ugu jiray, Java options badan oo ku siina. hadhow waa arki doonaa markaa ku shubno. marka aan bilaabno qaabka ku shubashada, click see. daaqadan ayaa ku soo bixayso. next dheh. next badanaa barnaamijyo marka lagu shubanayo dhammaantooda isku qaab waaye.
next ay u baahan yihiin installationka oo socona. Installationkan JDK-ga markaa ku shubanaysid ma u baahna wax internet ah, halka mar aad soo shubatida ku filan. laakiin Android Studio sidaas ma ahan oo arki doonaa. markaa ku shubaysid xitaa waxaa u baahan tahay internetkaaga inuu active ahaado si waxyaabo uu u baahan yahay oo la soo dego. wuxuu ku sheegay halka uu ku shubayo C program files Java JRE. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa Java markaa ku shubatid inaad configuration u baahatid. hadda Windows way soo update gareeyay configurationka automatic u qaadanaa. haddii uu configuration u baahatid folderkaas oo u baahan tahay next leh. barnaamijkii waa noo socdaa oo noogu duubmay. successful installed daaqadan ayaa noo soo baxday. close leh. hadda haddii aan fiirino aan hubino window taabatay calaamada window qaybta serjiga cmd hadduu kuu furnayo iska xir. window taaba qaybta serjiga cmd ku qor, kabacdi waxaa kuu furmaya daaqadan. Java haddaa qortid hadda waxaa haysataa optiono badan, taasoo micnaheeda ka dhigan tahay Java uu kugu jiraa computerkaaga. step koowaad waa sameyn. stepka labaad marka waxaa waaye inaan Android Studio ku shubno. sidoo kale Android Studio waa furaysaa. next processyada loogu shubanayo barnaamijyada waa isku mid. welcome Android Studio setup. next waxyaabaha u baahan tahay meeshan checklist 2.3 GB oo space loo baahan yahay waxyaabaha soo degsanayo si uu ugu shubto Android Studio. iyo waxaa ku shubanaysaa Android virtual device. next yaa leedahay meesha kugu shubayo kuu sheegaa Android Studio program files Android Studio ha bedelin sideeda ku daa. next leh install. waxyaabihii oo u baahanayo hadda kugu shubayo computerkaaga. sida hadda ka arkayso wixii ku socdaan complete oo noqday. start. Android Studio wuu kugu dagay laakiin waxyaabo uu u baahan yahay jiro sida Android SDK. so intoosan soo kicin ka hor ayuu ku weydiin doonaa Android SDK inaad soo shubato internet inaad ku xirnaato. wuxuu ku sheegi doonaa waxyaabaha u baahan tahay. hadda waxaa dhahdaa daaqadan no default leh. Android Studio 3 update waaye. sanadka ka dambeeyay update ku sameynayaan. marka Google waxay ku weydiinaysaa hadduu error dhaco iyo waxyaabahaas inaad soo report gareyso inta Android Studio isticmaalayso. no dheh. waxaa bilowday welcome Android Studio. qaabkii installation tab light ku shubo. hadda waxaa arkaysaa meeshaan 500 oo MB loo baahan yahay waxyaabaha lagu shubayo Android Studio emulator. waxaa arki doonaa emulatorka wuxuu yahay. waxaa kaloo lagu shubaa qaybta SDK build tool, SDK platform tool, SDK tool, emulator accelerator, SDK patch, source Android. waxaan oo dhan waxay isku gaarayaan ilaa iyo 500 oo MB. marka waxaana internet u baahan. SDK-gan muhiim waaye. computerka haddii Android Studio aad ku shubtid SDK uusan lahayn ma kacayo barnaamijyadan uu ku shaqeynayo. downloadku waqti badan oo qaadanaa. marka videoga intaan waa boobsiyey. ugu dambeyn downloadkii waqtiga dheeraa uu dhamaaday. barnaamijkiina si toos ah ayuu noogu shaqeeyay. muuqaalkan halkan ayuu noogu egyahay. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga oo aan ku tijaabin doono barnaamij sample ah inaan ku kicino Android Studio. waxaan idin leeyahay